Assalaamu calaykum. Akhyaarta, waxaanu ka hadlaynaa 10 caado oo haddii aad samayso, guushaada ay burburayso ama ay kaa dhimanayso. Haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad iska ilaaliso 10kan caado inaad samayso markii aad tiigsanaysid inaad gaartid guul ama aad ku haminaysid inaad nolosha aad guul ka gaadhid. Haddaba waxaan kuu sheegayaa 10kan caado waa qasab qof walba oo guul rabo inuu gaaro. 10kan caado way ka hor imaanayaan wayna hor istaagayaan, laakiin waxaa la rabaa 10kan caado inaad ogaatid oo aad ka gudubtid oo marnaba aadan isku xirin 10kan caado inaad ka dhaadhiciso ama naftaada aad u sheegto. Lambarka koowaad, u malaynta inaadan karti lahayn. Haddii mar walba oo aad rabtid inaad guul gaarto ama aad rabtid inaad hawl qabato oo aad ku guulaysato, iska ilaali inaad naftaada ka dhaadhiciso inaadan karti lahayn oo aadan qaban karin hawshaas. Waa wax ugu weyn ee mar walba dadka raba inay guulaystaan ama nolosha kale mustaqbal wanaagsan hor istaaga. Mararka qaar waxaa dhacaysa inaad isku aragto inaad hawsha ka soo bixi karin ama ay noqon doonto mid aadan karti u lahayn. Marka haddan kusii sheegayaa qof walba oo rabo inuu guulaysto, caadada noocana way hor timaadaa. Dadka badankoodana way baday raacaan oo daadka ayaa qaada. Boqolkiiba dad yar ayaa ka badbaada inay caadadan ka gudbaan. Marka ha noqon caadadan qofkii ay badeeda qaado. Lambarka labaad, shaacinta qorshahaaga. Iska ilaali inaad marna dadka u sheegto qorshayaashaada iyo waxa aad samayn doonto mustaqbalka. Badanaa sida la ogyahay, haddii aad sheegto qorshahaaga, waxaa jira dareemaha naftaada ama hormooniska jirkaaga inuu kuu sheegayo inaad hawshaas qabatay oo niyadaada aad ku qancin doontid inaad hawshaa qabatay. Marka iska ilaali qorshayaashaada inaad sheegto oo dadka aad u sheegto. Badanaa qorshayaashaadu waa inay noqdaan kuwa adiga caloosha kuugu jira, kuwa adiga kuu qarsoon waa inay noqdaan. Badanaa dadka guulaysta oo nolosha guul ka gaara waa kuwa qorshayaashooda qariya oo aan cidna u sheegin, oo wax walba ay rabaan inay sameeyaan ayagu niyadda ku haysta. Noqo marka qof qorshihiisa uu gaar u yahay. Lambarka saddexaad, ka cararidda caqabadaha. Qof walba oo raba inuu guulaysto ama raba inuu nolosha guul ka gaaro ama raba inuu ku guulaysto hawl adag, way hor imaanaysaa caqabad. Weligaa ha ka cararin caqabadaha. Qof walba oo raba inuu nolosha guul ka gaaro, caqabad ayaa hor imaanaysa. Waxaa loo baahan yahay inaad caqabadahaas oo dhan inaad aqbashid. Aad ogtahay guushu inay caqabada leedahay oo aadan marnaba guushaada aad joojin. Marka waxaad samaynaysaa markii ay caqabad ka hor timaado, waa inaad si walba aad ku xalin karto ama aad uga gudbi kadib waa inaad samaysaa. Lambarka afraad, run u sheegid la'aanta naftaada. Haddii aad rabtid inaad guulaysatid, waa inaad naftaada mar walba aad runta u sheegtaa. Haddii aad tahay qof caajis badan, waa inaad ogtahay inaad tahay qof caajis badan. Haddii aad tahay qof dib u dhigista ay ku badan tahay oo wax walba dib inuu u dhigo jecel, waa inaad ogtahay. Haddii intaas oo dhan aad ogeyn, daadka ayaa ku qaadi doona. Lambarka shanaad, shaacinta riyooyinkaaga ama himilooyinkaaga ama waxa aad rabtid inaad qabatid mustaqbalka. Iska ilaali inaad dadka u sheegto riyooyinkaaga iyo waxyaabaha aad ku haminayso. Waxaad ku haminayso waa inaad afkaaga aad ka soo bixin, waa inay niyadda kugu jiraan, waa inaad ficilkii aad la timaadid adigu. Lambarka lixaad, cabsida ballanqaadyada. Marnaba ha ka cabsanin inaad ka walwasho ballanqaadyada aad ka qaaday dadka ama ballanqaadyada laga qaaday. Intaaba ha ka walwalin. Mar walba waxaa laga yaabaa inaad la kulantid caqabado la mid ah xagga ballanqaadka iyo inaad ku guulaysan doonto waxaan, ama in haddii lagu yiraahdo haddii aad hawshaas samaysid waxaas ayaad heli doontaa. Iska ilaali waxyaabaha noocaas oo kale ah inaad ka cabsato. Marnaba ha ka cabsan. Lambarka toddobaad, ixtiraamka xad-dhaafka ah. Haddii aad rabtid inaad guulaysatid, guushaada ha uga tagin ixtiraamka xad-dhaafka ah. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo aad samayn lahayd inaad uga tagtid ixtiraam xad-dhaaf ah ama qof aad ku ixtiraamaysid. Marna guushaada ixtiraamka xad-dhaafka ah ka ilaali inay waxyeelayso. Lambarka siddeedaad, jabinta ama bedelidda maskaxdaada ama go'aankaaga. Iska ilaali inaad beddesho maskaxdaada ama go'aankaaga markii aad rabtid inaad gaadhid guul.
sababtoo ah marar badan ayaa waxaa dhacaysa adigoo waddadii guusha haya inay kugu soo dhacaan fikrado kale. Marka iska ilaali inaad maskaxdaada iyo wixii go'aankaaga ah inaad beddesho. Lambarka 9aad, dayacidda baahiyahaaga. Waxaa laga yaabaa adigoo raba inaad guulaysatid inaad ilowdid. Marka iska ilaali inaad naftaada aad ilowdid, sida caafimaadka jirkaaga iyo ka maskaxdaada intaba. Lambarka 10aad waa lambarka ugu dambeeya ciriirinta maskaxdaada. Haddii aad rabtid inaad guulaysatid, iska daa inaad naftaada ciriiriso. Ka qaado dadka fikradaha. Waxaa jira dad badan oo kuu imaan doona oo kula wadaagi doona fikrado badan. Marka isku day inaad dadka aad dhegaysato oo aad fikrado badan aad ka qaadato. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu